في هذا الكون ليس مستحيلا ولكن النادر في مثل هذا الصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي أيها المشاهدون. اليوم في عندي حكاية عجيبة جدا، وهي وقعت في مملكة العربية السعودية، في وحدة السعودية زوجت ولد وهي دكتورة، وبعدما زوجت أول يوم العرس راحوا شهر العسل ووقع بأمر الله، هذه إرادة الله سبحان الله في الحادث. بعدما تقول زوجها وقف في طائف، جيب لي سيارة اللي جهة الثانية شارع العام، جيب لي آيس كريم. وهي أمامها شافت الزوجها ضربت سيارة، وسبحان الله البنت هذه صبرت صبر جدا جدا، تقريبا زي ما سمعت في ناس سعوديين يعني حوالي 6 سنوات، وهي دكتورة تشتغل مستشفى. بعد شهرين نقلت المستشفى اللي تشتغل عليها، وهي صبرت حوالي 6 سنين. دعت إلى الله، وربنا سبحانه وتعالى قبل دعائها، وزوجها تدريجيا يعني جاء في عقله وفي صحته. سبحان الله، هذه البنت الله يعطيهم عافية جزاهم الله الخير. walaalayaal maanta maxaa cusub waxaan idinku soo gudbinayaa wadankan Sacuudiga waxaa ka dhacay gabar iyo wiil ayaa isguursaday. gabadhu waa diktoorad, wiilkuna wuxuu ahaa nin shaqo iska wanaagsan haysta. bacda alfitra intii uu jaahisinayay arooskiisii, iyaduna ay lahayd lacag aan ku siiyo oo arooskeena ku dhamee, deynba haddaad rabtid u bixi. isaguna wuu diiday. muddo dheer kadib wuxuu diidanaado in ay lacagta ka qaato. maalintii dambe ilaahay waa u yasiray, arooskii wuu kamilay. awal yoom bay waxay u baxeen magaalada la yiraahdo Taif, shahar al-casalkii bay halkaa aadeen. wiilkii bay tiri waxaad ii keentaa laamiga dhinaciisa kale ice-cream halkaa iiga soo qabo. dhinacii kale u gooyey. waxay arkaysay wiilkii guursaday zawjkeedii oo baabuur inta ku dhacay. subxaan allah, yacni arag إلهي بينو كما قلنا إنه إلهي إن تصو في مثل هذا الحادث. حسبي الله ونعم الوكيل. نقول له حسبي الله ونعم، اللهم أكفنا شر الدنيا والآخرة. ولا ليال قبدي أهل كيبا يسوي معد متقان ميشان عد كقرن ميسو عدي الله هذا شو تلفون بدرتي أهل كيدي بايمي، أهل كيدي مركو يمي laba bilood bay dhakhtarkii kula jirtay. kadibna shaqadeedii iyo mustashfii ay ka shaqaynaysay oo riyaad ahaa ayay u xawishay wiilkii. markay u xawishayna waxaa dhacday in wiilkii uu qaybuuba galay muddo 6 sano ah. gabadhii salaad bay tukataa, ilaahay bay barisaa, sadaqad bay bixisaa, ilaahay inuu u caafimaadiyo wiilkeeda, zawjkeeda inuu ilaahay u caafiyo. سبحان الله. maalintii dambe حوالي 5 سنة 6 سنة ayay markay gaartay. gabadhu gelinka hore dawaamkeeda aadaa, kan dambena waxay timaadaa meesha dhakhtarka ah, way ka shaqaysaa. markii ay dawaam ka baxdana isagoo dhakhtarka ku jira ayay la joogtaa. ilaahay baa u yasiray. maalintii dambe ayuu soo naaxay in yar. subxaan allah, gabadhaa saburkeedu wuxuu ahaa الصبر جميل، إن الله مع الصابرون، إن الله مع الصابرين. مركا ولا ليال صبركو وناكسن يهي، صبركو ومفتاح الفرج. الصبر طويل، نجاح الفرج. مركا ولا ليال ما أنت وحان ربا قصة عن ير وأن نيسو قد بنيو إن أنت كسو كوبو أين نؤغانو إن qofka bini aadamka ah saburkiisa ilaahay wax walba ku siiyo, nolol wanaagsan ayay ku noolaadeen gabadhii iyo wiilkii. ilaahayna waa u yasiray. waxaan leeyahay marka saburka aynu ogaano, ehelnimada iyo qaraabadana aynu ogaano oo aynu isku xariirino.
walaalyaal maxaa cusub maanta qisadaa yartaa ayaan idinku soo koobaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi